Turkiga miyaa taqaanay Erdogan ka hor? Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waa ninka dunida baray Turkiga. Turkiga wixii ka dambeeyay dawladdii weyneed ee Cuthmaaniyiinta, sharafteeda ayaa dhulka gashay, waxa saaxada laga saaray diinta Islaamka iyo dhaqankii Turkiga, waxa lagu guuleystay in la wiiqo ama la tirtiro saamayntii uu caalamku ku lahaa Turkigu. Waxa lala dagaalamay dhaqaalihii Turkiga, waxa la curyaamiyay warshadihiisii, oo waxa lala galay heshiisyo badan oo ka dhan ah dhaqaalaha, dhaqanka iyo diinta iyo wax soo saarka warshadaha iyo awoodda ciidanka. Waxa laga dhigay dawlad yar oo kamid ah kuwa aqliga laga gumaysto ee gacmaha horsada, taasi oo shuruud looga dhigay in lagu darayo qaaradda Yurub. Xataa waxa la gaadhay in la yiraahdo sida reer Yurub u labista oo xijaabka tuura. Waxa la gaadhay xilli la yiri eedaanka salaada af Turki ayaa lagu eedaamayaa, waana xilligii ay ka tirinayeen xisbigii cilmaaniga dalka Turkiga oo dhammaan dhaqaalaha, dhaqanka, diinta iyo si walba oo Turkigu sifir noqday, uu noqday badal aan la aqoonba. Intaa kadib waxa uu soo baxay nin la yiraahdo Rajab Tayyip Erdogan 1994 ilaa 1998 ayuu maayar ka noqday Erdogan caasimadda Istanbul. Waxa uu ka sameeyay horumar cajiib ah oo aan caadi ahayn. Istanbul ayuu ka dhigay caasimad kamid ah caasimadaha adduunka ugu quruxda badan. Waxa uu helay samcad siyaasadeed oo wanaagsan ama fayl siyaasadeed oo wanaagsan. Waxa uu aasaasay laba xisbiga AKP, kadib waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Turkiga 2003 ilaa 2014 ayuu ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga. Wixii intaa ka dambeeyay waxa wax laga bedelay dastuurka dalka Turkiga oo waxa la doortay in la yiraahdo waxa loo tartamayaa booska madaxweynenimo amba ra'iisul wasaarihii ayaa lagu bedelay booska madaxweynenimo in loo tartamo. Waxa awood la siiyay madaxweynahu inuu noqdo hogaamiyaha jamhuuriyadda Turkiga. 2014 dabayaaqadeedii ayaa Erdogan loo doortay madaxweynaha dalka Turkiga. muddo yar markuu xilka hayay waxa uu soo celiyay sharaftii iyo karaamadii Turkigu ku lahaa adduunka. Waxa uu dhaqaajiyay dhaqaalihii dalka, waxa uu kor u qaaday astaamihii diinta Islaamka iyo dhaqankii Islaamka iyo kii Turkigaba. Waxa uu samaystay warshadaha wax soo saarka sida baabuurta, hubka, cuntada iyo korontada iyo dharka iyo wixii la mid ah. Hadda waa mid ka mid ah dawladaha adduunka ugu dhaqaalaha badan, waa mid ka mid ah dawladaha adduunka ugu saamaynta badan dhinaca siyaasadda iyo dhan walba iyo dhanka magacaba. Waa dalka ay ciidamada ugu badani kaga jiraan ururka NATO. Waxa uu xiriir la sameeyaa dawladaha adduunka midka uu doono oo aan cidi wax ka weydiinayn, oo ay ku jiraan dawladaha Islaamka. Waxa uu aasaasay ururka dawladaha Islaamka. dhowr jeer ayaa dib loogu doortay madaxweynaha dalka Turkiga. laakiin iminka 14 bishan May 2023 maalinta berri ah waxa uu galayaa doorashadii ugu adkayd abid ee Turkiga ka dhacda. musharaxiin isbahaystay oo ugu horeeya amba uu hogaaminayo ninka la yiraahdo Kemal Kılıçdaroğlu oo la filayo inay taageerayaan amba ay baritaarayaan wadamada reer galbeedka oo Erdogan aad u nacab. tartan adag ayaa dhaxmaraya maalinta beriya. ku dhawaad 64 milyan oo shacabka reer Turkiga ayaa u dareeri doona doorashada. Erdogan oo maanta khudbad qiire leh ka jeediyay fagaaraha Istanbul waxa uu taageerayaashiisa u sheegay inay doorashadiisu farxad gelinayso dhammaan dunida Islaamka oo ina farxad gelinayn dalka Turkiga oo dhan oo farxad gelinayso dadka Sunniyiinta oo dhan oo farxad gelinayso dadka ay qibladoodu tahay Makka. waa sida uu hadalka u dhigay Rajab Tayyip Erdogan oo khudbad qiire leh ka jeediyay fagaara kamid ah magaalada Istanbul. wadamada reer galbeedka ayaa aad u nacab ninkan, waxay dhowr jeer isku dayeen in la afgembiyo waa ayna ku fashilmeen. waxaana u weynaa inqilaabkii 2016 la isku dayay ee aadka u weynaa ee ay ku fashilmeen. waxa xusid mudan inay dhammaan heshiisyada Turkiga hore looga qiyaameeyay oo ha in aanu samaysan karin sida warshada hubka nukleerka iyo wax la mid ah. waxaan la sheegay in dhawaan laga yaabo inuu soo saaro amba uu samaystaba nukleer, iyadoo imika la sheegayo inuu samaysay warshado badan oo dhinaca korontada oo nukleerka korontada, laakiin aanu samaysan kii hubka ahaa. dhawaan ayay ahayd markii Turkigu uu soo saaray gaari casri ah oo kuwa korontada ku shaqeeya. Erdogan uu xaray ka jaray oo ah mid ka mid ah kuwa dunida ugu casrisan. Erdogan bari wuxuu galayaa tartankii ugu adkaa ee uu la galo mid ka mid ah mucaaradkiisa oo ay baritaarayaan wadamada reer galbeedku dhammaantood sida ay warbaahintu sheegaysan ay caddahay inay taageerayaan ninka. Turkiguna waxa taageeraysa dunida Islaamka oo dhan oo qalbiga iyo cudud iyo maalba ku taageeraya sidoo mar labaad u soo bixi lahaa Erdogan una noqon lahaa hogaamiyaha Islaamka sida lagu sheego amba lagu qiimeeyo. Erdogan waxa weeyaan nin aan ka labalabayn kuna shaqeeya mabda'a Islaamka, aan kana gaban reer galbeedka, wuxuu doonana u sheega kuna ilaa mabda'iisana ku cad yahay.
oo aan ahayn kuwa ka gabada ee ay wuxu yeedhiyaan sida meelo badan oo dunida ah. Waan eegi doonaa insha Allah Erdogan in mar labaad la doorto iyo in la doorto ninka isaguna laftiisu aan taageerayaasha lahayn ee aad ugu soo dhow. waa markii koowaad ee tartamadan uu Erdogan madaxweynenimada u soo galay ee musharax aad ugu dhow uu la tartamo, taasi oo Erdogan yara wiiqday baa dhul gariir dhawaan ka dhacay dalka Turkiga ayaa hoos u yar dhigtay taageerayaashiisa oo xogaa yar wiiqday iyo dhaqaalaha dalka oo aad ay reer galbeedku ula dagaalameen, laakiin uu bawac dhigay oo aad hoos ugu dhigay.